waxaa saaka gegida diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan cigaal international airport ee magaalada Hargeysa si ballaaran loogu soo dhaweeyay wafti ballaaran oo hogaaminayo xildhibaan Cabdiraxmaan Cawaale Yaasiin oo ah gudoomiyaha gudahoosaadka arrimaha dibadda ee golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Djibouti. soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaadanayay gudoomiyaha gudahoosaadka arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Axmed Cabdi Kichande, wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caataye Fariid, iyo waliba sidoo kale safiirka Somaliland u fadhiya Djibouti oo isaga laftarkiisu waftiga kamid ahaa. maanta waftiga waxaa magaalada Hargeysa si ballaaran ugu soo dhaweeyay isla markaasina si niyad samiya sheegay inay u qaabilayaan xildhibaan Axmed Cabdi Kichande, waxaana hadaladiisii kamid ahaa ka socda baarlamaanka Djibouti oo ka kooban laba qof iyo nin saddexaad oo xisbigaas Djibouti ee xisbul xaakim wakiilka ah ayaan halkan ku soo dhaweynay. waxaan oo ka qayb gali doona shir biri laga furayo Hargeysa oo shir caalami ah oo arrimaha maxaan ku rahay Somaliland lagu falanqeyn doono. waftigaas oo ka qayb galaya shirka ayaan maanta halkan ku soo dhaweynay. waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada, gurigiinii labaad ayaa timaadeen, sida iyo gacmo furan ku soo dhawaadayaan leen. Cabdi Fataax Saciid Axmed, safiirka Somaliland u fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri farxad baan noo tahay maanta in saddexda xildhibaan ay ka yimid Jamhuuriyadda Djibouti inuu yimaadaan shirkan muhiimka ah ay ka soo qayb galaan. waana runtii maaha wax cusub, waana socon doontaa. xildhibaanada Somaliland way iman doonaan Djibouti haddii la yiraahdo. xildhibaanadana waa maxaa haydo sida maanta hawsha u bilaabantay. waxaan jecelahay mustaqbalka in xiriirku uu noqdo mid joogto ah haddii la yiraahdo. xildhibaan Cabdiraxmaan Cawaale Yaasiin oo ah gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Hargeysa. xildhibaan ka kooban laba xildhibaan oo xisbiga maxaafadka iyo xildhibaan xisbiga mucaaradka oo markaa insha Allah wayna ku maasiin soo dhaweyntan. إن شاء الله حرجينا أنا كونفرنس كون مني إنه كونفرنس قالي وقيمة بدن وحياة بدن سودارس النقطة سودون تودون أدنى وقوم هذا نقلنا وأنا وضك يجي لبعض بنجنا نكنا ناس عضل أدبو يا وضك يسيل واسقنا ورجع يسقنا وأنا ما سنتين وزير كيوم توفتك على توي مسير. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caataye oo sheegay inuu si kaliya laaba u soo dhaweynayo waftigani. halkan dhamaanteed aan nahay inta reer Somaliland waxaan ku soo dhaweynay xildhibaano Djibouti nooga yimid iyo safiirkeena Djibouti Danjire Cabdi Fataax oo ku soo dhaweynayno shir qabsoomaya Somaliland khaasan Hargeysa caasimada oo la eegayo 27 sano Jamhuuriyadda Somaliland jirtay waxyaalaha uu qabsoomay Somaliland maadaama itiraaf aan raadinayno aan doonno dadyoga adduunka oo dhan ka dhaadhicino qadiyadeena. marka halkan waxaa yimid gudoomiyaha arrimaha dibadda ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti oo hogaaminayo xildhibaan Cabdiraxmaan iyo laba xildhibaan oo kale oo midna gudida kamid yahay midna gudida arrimaha bulshada kamid yahay, iyagoo aan leenahay ku soo dhawaada dalkiini labaad ee Somaliland oo dareemay inuu dalkiini yahay. Zakariya Sudaysi, Badda Cas 24 TV, Hargeysa.